inkasta oo aysan ahayn markii ugu horeysay ee bandhig buugaagta afka Soomaaliga ku qoran lagu soo bandhigo magaalada Göteborg ee wadanka Sweden balse waxa la oran karaa waxay ahayd madal mar kala kulmisay aqoon-yahano iyo abwaaniin ku xeel dheer afka Soomaaliga kuwaas oo siyaabo kala duwan uga hadlay muhiimadda uu qoraalka iyo afka hooyo u leeyahay bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda ku nool qurbaha. dhibaatada dhulkeena ka jirta waxay u kaliftay in hadda aanu 6 sano jiro inaan dib qalinka intuu qaato aan qoro heeso wadaniya oo runtii guwaba dadku waxaad moodaa markaad wax qorto oo qoraal ay ku egayaan ama buug akhrintu waa yar tahay laakiin marka Cabdi Baadil iyo Bashiir Cali Xuseen ay gudbiyaan waxay u gaaraa dad badan oo dhageysanaya oo maqlay marka ummadda waxa kicin kara waxay tahay fanka in lagu kiciyo in wax la maqashiyo. Bashiir Cali Xuseen waa fanaan mulaxamiiste iyo qoraa afka Soomaaliga aqoon aad u durugsan u leh wuxuu madasha ka sheegay oo sharaxaad dheer ka bixiyay qaybaha uu afka Soomaaliga uu ka kooban yahay iyo sida maanta afkaasi qaybihiisii ugu miisaanka cuslaa ay baaqi ay ku yihiin miiga iyo dadka xoolo dhaqatada ah halka reemagaalku ku sheegay in ay baxeen afkii ama ay ka faanayaan taasoo ay ugu wacan tahay luqadaha qalaad oo ay barteen. sidig afka Soomaaliga xululeyda isticmaasha waa neef kale lagu sidkay si loo caano maalo ama loo nuugo iminka sidig kama hadlayno xarfaan ka hadlaynaa xarfaha waa laba isu saaran yihiin ka waa xaraf keligiisa marka ha lagu daro ayuu noqonayaa kha ayuu noqonayaa haddii la kala qaadana xaraf walba meeshiisii uu noqonayaa ha iyo ka ay kala noqonayaan laakiin reer magaalku waxaad arkaysaa afkii inuu barax ka noqday ama ay ka xaragoonayaan afkooda intooda badan waa ka xaragoonayaan ama waxaa laga yaabaa carabigu wax ku soo bartay ama ingiriisku wax ku bartay ama talyaanigu wax ku bartay nin walba wixii uu wax ku soo bartay oo uu watay ayuu afkiisii barax uga dhigaya si loo ogaado inuu yahay nin afaf badan yaqaana oo khatar ah kiisii ayuu markaa haqanaya way fiican tahay aqoontu inuu qofka afaf badan luqado badan inuu yaqaano wax ka fiican ma leh laakiin waxaa la rabaa inuusan meesha barax imaanin oo la isku barixin markaad ingiriis ku hadlayso ingiriis ku hadal markaad carabi ku hadlayso carabi ku hadal markaad talyaani ku hadlayso talyaani ku hadal sidaasoo kale markaad Soomaali ku hadlaysana Soomaali ku hadal ha barixin waayo kuwa kaleba ma baraxdid markaad ku hadlayso Ifraax iyo iyana waa qoraad degan magaalada Oslo ee wadanka Norway waxay ka mid ahayd aqoonyahannii halkaasi ka hadlay waxayna ay sheegtay in cilmi-baarisyo kala duwan oo hore loo sameeyay lagu ogaaday in caruuraha waalidkooda ay buugaagta u akhriso yihiin kuwa fahmo badan halka kuwa aan waalidkoodna waxba u akhrin ay yihiin kuwa fahankoodu uu aad u hooseeyo si xitaa bay tiri aan caruuruhu afkooda hooyo ugu lumin waxa muhiim ah in hooyada Soomaaliyeed ay kula hadasho caruuraheeda marka xataa ay ag joogaan ama ay hoolaha u qabanayso macni ilmaha taas micneheedu waxay tahay marka ilmaha wax loo akhrin waa ilmo maskaxdiisa dhaqdhaqaaqiisa ay eberta ama daciif tahay malahan awood oo wax ku alifo malahan awood oo wax ku sheego malahan awood oo wax ku fahmo soo maxay ilmaha aan rabno inaan barbaarino waalid kasta waxa aaminsanahay inuu u baahan yahay haddii aad basamaysay ma sha Allah waa wax wanaagsan waalidiin fara badan oo Soomaaliyeed la kulmanay waalidiin runta aad u dadaala laakiin waxaan rajaynayaa in intaas aan ka sii badano aan ilmaheena wax u aqrino xilli horeeto talooyinka aan rabo marka in aan idin siiyo aniga waxay tahay cunuga oo loo baahan yahay in luqadiisa la baro haddii la rabo cunuga luqadiisa la baro sidee lagu sameyn karaa waa wax loo aqriyo haddii la rabo cunuga luqadiisa la baro sidee wax lagu sameyn karaa in marka xataa loo labisayo lagu hadlo af Soomaali hooyo shaatiga ku galnooya gacanta kor u qaad may gacantaada saasa insaan dheh gedi macnay cunugii xataa marka aad wax u sameynaysid ama raashin aad sameynaysid ama aad wada joogtiin haddii aad af Soomaaliga si sax ah u isticmaashid uu kaa qaadanayaa situationadaas xaaladahaas dhexdooda oona af Soomaali fara badan ku barana laakiin dhibka naasta waxay tahay hooyada waqti meesha waa stress fara badan ay ku dhex jirtaa
maxaan ku eray tirada carruurta darteed iyo nolol maalmeedka ay ku nooleen wuxuu yahay nolol maalmeed aad u adag runtii taasoo keenaysa inay hilmaanto inay cunugii la hadasho waxaan arkaa hooyooyin fara badan cunugii wixii u sameynaya ayagoon la hadlin cunugii maxay keenaya taas cunugii inuusan fahmin luuqadii haddii aan dad bulsho ahaanne aadaa maxaan ku iraaday ugu xanaaqna markaa aragna cunug qaylinaayo ama socdo saas dartaa ilmaheena ayagoo dhan waa ilmo wada haadaayo Sidayasha bigio seda haiga kamatiro Sidayasha bigio seda haiga kamatiro Sumcadayda kama tago Somali banay Taariikh la sugayo aqoon lagu sargoyo Taariikh la sugayo aqoon lagu sargoyo Sidayasha